qisooyinka murtida iyo maada iyo sheekada inoo dhaxa daawadayaal barnaamijkan waxaanu ugu talagalnay weliba waqtigeena ciidda ee waxaanu idin leenahay annagoo ugu talagalnay waqtiyadan ciidda waxaanu idin leenahay ciid wanaagsan labada sheekaan toddobaadkan doonayaan idiin sii daaya haddii ilaahay idmana waad loo sheeko aan ka soo xolay sheekooyinkii sanadkan oo dhan idiin soo waday oon munaasabadda ciidda darteed iyo dareenkiina iyo xiisaha u qabtaan labadaa sheeko aan ku soo xolay sheekada koobaad halkudhigeeda waxaa la yidhahaa ninkii hooyadii jeclaa waa sheekada ciidda iyo munaasabadda aan idiin soo xulay oo la yidhaho ninkii hooyadii xusuustay waa ninkii hooyadii xusuustay axmed wuxuu ahaa nin dhallinyaro ah tuulo jooga magaalada hargeysana ku ahaa dhowaan soo gal hase yeeshee nin urursan oo nadiif ah cagtiisa meeshuu dhigayo iyo afkiisa ereyga ka soo baxayana u fiirsada dadka uu la shaqeeyaana ay aadu jeclaayeen wuxuu ka shaqayn jiray shirkadahan isgaadhsiinta mid ka mid ah oo uu meel u ilaalin jiro waashmaanu aha waxaana la siin jiray lacag $150 oo wuxuu ahaa nin qaadqamaxe qaadkiisa iyo qadadiisa iyo habeen hadduu haleelo casho aan dhaafin intaasay ahayd waxa uu qaataa markuu naftiisa ku ilaaliyo caqaartiisa jaada ama mijinta jaadu maalintaa cuno qadada iyo hadduu haleelo oo iga soo hadha cashada hase yeeshee galab kasta ragga uu la fadhiistaa ka marag ahaaye axmed marka uu caqaarta ama mijintaa cunayo wuxuu carabka ku hayn jiro had iyo jeer xusuusnaa hooyadii uu tuulaan magaalada hargeysa ka fogeyn joogtay mar allaale markuu jaadka cunu odhan jiray ma hooyadan aanoon wax tarin ayaan baan magaalada iska joogaa ma weli aanoon hooyada xitaa arag saan uga imi ayaan hameenadan gamcaya raggaasi la fadhiya calaacalkiisa ka fadhiyi waa jireen markaasaa waxay jeclaysan jireen in maruun ilaahay axmed farihiisa wax soo geliyo oo uu hooyadii soo wanaajiyo qaarkoodna waabay ku xanaaqi jireen waxaanu jireen war ma keligaabay hooya ku dhashay annaba wayna dhasoo farahaanu ka qaadneen subax dabeed ayuu ninkii ay tolka ahaayeen shirkadda lahaa ayuu ku kallahay wuxuu ku yidhi war niyo dhibaatadaasay haysataa hooyaday waan dad u jecelahay ayaan intaan kuu shaqaynayay weli aan rubuc sonkor u iibin malkhabad uma iibin buuri marka waxaan doonaya inaad $50 oo bilba wax layga jaro ee ama hayso saan ugu diro ninkiiba aad u farxay uu yidhi waari axmed ma hooyadaad xusuusatay aad baad u wanaagsantahay haddaad hooyadaa xusuusan tahay anna 50 baan kuugu daray 50na waad amahanaysaa 50na jeebkaygaan kaaga daray markaasuu yidhi haddaba u diri maaye waabaan u tegayaa 2 cisho fasaxanaysi maasuu yidhi 3 baan ku siiyey fasaxa albaabkii buu ka baxay isagoo $100 haysta marka uu bannaanka u soo baxo isaaga dharku xidhan yahay bisoo waa shaar calala surwaalka oo farqiyalo jeexjeexmayba cimaamad iyana hilif oo googo'day ayuu xidhay iyo 2 kabood oo sandala oo inayba geesu go'antay markaasuu qodhay xiraday wax lala tago tuulada intaad ka soo maqnayd maahee xagga iyo shiraac ayuu ku leexday wuxuu iibsaday shaar iyo surwaal iyo 2 sandala oo $10 horta $100 halkaasay ku afgo'een markuu ka soo baxayna nin saaxiibkiia oo aad ugu dheeraa ayuu yidhi kaali ila soo qadi qadadiisu harakow joogta ay ahayde wuxuu yidhi maalinta alleeli waslad hilibaad dhadhamis way israaceen labadoodiioo waxaa la galay dukaan hilibgeellaah $10 oo kale iyo siyaado ayaa laga booday waa la soo baxay 40 baa maqan wuxuu yimi istaankii baaburada kolay u dhawaayo jaada ayaa wuxuu qaadan jiray awal dadarta ka dhaadheer buu qaatay maca alaabooyinkiisi iyo markuu xamaantiisi isku daray iyana waxay noqotay $10 50 halkaasay ku tageen waxaa soo baxay baabuurka kiradiisii iyo dadkii shaxaadii iyana $10 baa tegey 40 isagoo jeebka ku haya ayuu tuuladii ka tegey tuulo joogii oo dhan baa ku soo yaacay ninkan xaragoonaya dajaadka sita alla waa axmed soo degay waar axmed badibadaad ka timi berigii horta miyaa tahriibtay oo magaso aduu fallar qaado aduu caqaar qaado suu lahaa ayuu dabeedna khaas fadhiistay fiidkii isagoo jeebkii $5 ku hadhay ayuu xusuustay hooyadii midag fadhiil waaryaha hooyadii tuulada ma joogtaa markaasuu yidhi maya inankiinii hebel reerkiisiioo meel heblaayo soo degay ayuu caano doonatay
مسؤول الحمد لله كوجا تنبانو يمن دونا يبح بابو ريم تاجين سيدو كسون نقطة نكي هو يدي حصصني حكايات قصوين كمرتدى إيا مادة إيا الشيء كذا ينوضح هتجينا إيد وناكسن بعد لي مرة بعض إيا الشيء كذا إن الله بعضه ما أنا إبني إيبا وما كينين إيبا وما كينين شحوها شحوان هنيجو هرايد كل شيء وحواها ننطلق عربت لقو تلمامش يكوين كيسة شخصية ويا لا أبوري أي شيء يعمل نقانا وحنا الوضع يا دلك شامتا أما ولي بالعراق مركا نكا شحا أيام مالمها كمذا دمر ولها ومتعافية وحوجة أيو كان سيلدي حوالي الوي بني أيو دمر كي كان يسقونا وأكبر يستر نين دمر إنه يفسد الدنيا أيام مركو عبار دمر كاكي تاجنا كسول لحظة دمر لا فرما نين دمر يفسد لهاي ونافي أنا متشو دمر كي متعاطم دشيشي ودمر حوجة شو الله اللي ما يوفر لها مركي الدنبه أيو حاجة الدنبه وجوريجي ويصير باللويس الدنبه ياك دمر كيبا انتو لبضي قوة الدنبه يسكن مرتين أيو الدنبه برق هذا نكيوم هل كانوا كنتو كغرفتو نكيو كغرب يدعونا شو مورن عباد كيف سبا دتك كسويا عينك نكي بالقبتو بيال قرشي سو ميرويو شو حقبتو الوا طالم شو مقاسل محاد عيو دمير كي سيتلي إذا ما نو قبل دميرك أنا أقول أنت عرفني حتى يمون صوكعين شو حدتك عنانتك شو حوس كفر دي عندنا لما هذا دتك مركك كلا تجن المدلل شوي هدنا أيه وحليلي قرب الديرين دقوقن مويديه متكلوا يسكسوا على إسنا والدمير دوني يفسدوا أيه هالكي صومري دمير كم بارك متعافقة شو حاك فرديو شو حو سلامي دمير كي وهريرو لك سو وريجي مركز سو دمير كدال سو هذا مركز دمير كقنعي أيو فروت سر كورقا سو الكي سواركو إن الكم قينين كلا سيدا أيو فروت وطاطي بالدمير كي أنت خاسو كقنين نكشي والراب صدق نكي يدمير كي يسلب بود عبادك وا شو حوس كفر ديا dadka wada soo carro dameerkii baa laga fujiyay ninkii gacantiina wuxuu ka dhigay cajil dadkii waxay canaanteen war maxaad ninka uga qabi weeyay dameerkale hadal ma leh war miyaad islaam ahayn oo naxaya wax u bal lagu hadlo markii dambe islaani tiri war maxaad dameerkan meesha u keentay yaa ka iibsanay wax ku falaya waxa hadloo yidhi maana iibow keenay bas hadaa maxaad u keentay mas'uul dhibta uu nagu haya aniga iyo carruurta in la qaybsadaan u keenay xikaayaadka qisooyinka murtida iyo maada iyo sheekada inoo dhaxa iyo waliba